munaasabad lagu xuseeyo maalinta dhimirka adduunka oo ku aadanayd maanta ay taariikhdu ahayd 10kii bishii tobnaad ayaa ka qabsoontay cusbitaalka magaalada Berbera waxaana ka soo qayb galay barasaabka gobolka Saaxil duqan degmada Berbera isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil marti sharaf kale oo tiro badan oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay ugu horreyn waxa halkaas hadal ka soo jeedisay agaasimaha cusbitaalka magaalada Berbera Aasha Aadan Guuleed iyo isuduwaha wasaaradda gobolka Saaxil Bashiir Diiriye Jaamac alxamdulillah xusayno dadka madaxa ka xanuunsanaya ama dhimarka ah waa maalintoodii waa maalin malaayiin adduunka kamid ah oo xanuunsanaya sidaynu inagu xusayno meel walba adduunka laga xusayo waxa ilaahay mahadiya subhanallahi wa ta'ala inaad indhiina ku arki doontaan safka u horeeya waxa fadhiya waa patientkeeni bogsaday madaxda dhibol waxa had iyo jeer laga hadlaa waa suicide-ka ama dadkan isdila ama isdildila ama qofka ama wax isku dhufteen xanuunkaasna xanuun baa keena xanuunkan depression-ka la yiraahdo keena ama qofka nafsi jaba oo noloshii ka quusta keena xanuunkaas uu soo badanaya dadka had iyo jeer ragga waaba laga warhayaa hooyooyinka marka ay uurka leeyihiin iyo marka ay umulaanba xanuunkaasi caqabad buu ku yooway jiraan waxa jira dad badan oo aan la ogeyn tiro yar baha tooyooyinku ku dhacay oo haddana aan la dareemin sidoo kale waxa isaguna halkaas hadal ka soo jeediyay xogayaha dawladda hoose Cabdikariim Aadan Saciid maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ka shaqeysa waxa kale mahad gaarsiinayna guddiga caafimaadka ee heer gobol oo runtii aynu magaalooyinka kala dheernahay marka runta laga hadlayo xaqiiqada dad wax muddo dheer ka soo shaqeynayay muddo kara isku duburadka caafimaadkana gacan weyn ka geysta ilaahay waxaan ka baryaynaa sida uu inoogu shaqeeyo systemku inuu inoogu shaqeeyo ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa labada fariimada aynu dirayna waxa weeyaan cid kasta oo ka qayb qaadata maxay tahay marka waxaan jecelahay laba qodob oo aan uga faa'iideysto markaan iska dhaafo inta hore qodobka koobaad waxa weeye dadka reer Berbera iyo maamulka aan u sheegayaa waxaanu kaga duwanahay magaalooyinka kale waxaanu baadi doonaa qof kasta xanuunsanayo ku dayacan magaalada gudaheeda iyo darafyadeedaba waanu soo ururinaa qofka dayacan waxa dayacay oo iskaga tegay qofkii la dhashay wuxuu eeganayaa inay wax ku dhacaano dabadeed uu magtiisa soo doontuun buu eeganayaa wuxuu geysto dhanna uu ka gabanayaa waana buu qoranayaa kaa laga wada cararay ee sharcigu aanu ogolaan in la geeyo maxaan ku raahdaa teelasha caadiga la geeyo markay dawladda hoose iyo maamulka degmadu ka howlgalaan ay soo qabtaan ee ay isagoo nabad qaba soo qabtaan oo ay dhakhtarka keenaan ee uu dhakhtarku daryeelo ee uu caafimaado ama uu ku jiro xaaladii caafimaadkiisa soo dhawaanayso oo daryeelkiisii ku jiro marka tii ilaahay ku timaado waxaanu leenahay cidina uma raacayso walaa guddi baan cid u raacayn walaa dhakhtar baan cid u raacayn ولا دكتور بان عذر راعين gunaanadkii munaasabadaasi waxa isagoo hadalka soo afxiray gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Ahmed Ismaan Xasan markay kala reebin la gudigooda arintaad haysaan waxa uu baan leenahay guubaaba guud sanadkan malaha laba qof meelahaas la helaan malaynay wax lugeeyay oo meelaha ku dhintay dadaal wacyigelin badan inuu sameeynay aad baa loo dadaalay xagaayadii hore way ka badnaan jireen waxaan mar labaad leenahay in maxaan ku raday qofka xanuunsanaya ee la arka meelaha inuu lugeynayo in kantaroolada iyo maxaan ku raday bulshaweynta kale ay soo sheegaan ay qabtaan gaadiidleydu markay meelaha marayaan qof xanuunsanaya markay arkaan inay soo sheegaan halka ugu dhow ay ku wargeliyaan waa run وعبد الرشيد مبارك عبدي عبد الرشيد سول Somali Cable TV Berbera